madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed Soomaaliya Cabdicasiis Xasan Maxamed Lafte Gareen ayaa shir gudoomiye shirka toddobaadlaha ee golaha wasiirada maamulkaasi oo maanta ka qabsoomay magaalada Baydhabo ee xarunta ku meel gaarka maamulka koonfur galbeed iyadoona shirka looga hadlay ajandooyin uu ka mid yahay amniga, cadaaladda, xaaladda degmada Afgooye, samata bixinta fatahaadaha, dib u dhiska wadooyinka Baydhabo iyo kuwo kale oo lagu falanqeeyay intuu socday shirka ayaa ugu hore waxaa looga tacsiideeyay taliyaha guutada toddobaad ee qaybta lixdanaad ee ciidamada xoogga dalka oo xalay ku geeriyooday dagaal dhexmaray ciidamada dowladda Soomaaliya iyo xarakada Al-Shabaab waxaana madaxweynaha iyo guud ahaan golaha wasiirada ee kasoo qayb galay kulanka ay tacsiye ay u direen guud ahaan shacabka reer koonfur galbeed gaar ahaan ehlada uu ka baxay marxuumka wasiirka wasaaradda amniga dowlad goboleedka koonfur galbeed Soomaaliya mudane Ciise Qaari Subax oo warbixin ku saabsan amniga la wadaagay ayaa sharaxay xaaladda amni ee deegaanada koonfur galbeed waxaana uu xusay in toddobaadkii lasoo dhaafay ay qalalaasa amni aysan ka dhicin deegaanada koonfur galbeed marka laga reebo shaqaaqadii xalay ka dhacday deegaanka Buulalow oo duleedka ka ah degmada Afgooye walow ciidamada dowladda kuwa gaarka ah koonfur galbeed iyo ciidamada Mareykanka oo Soomaaliya taageera ay wadaan howlgallo lagu xaqiijinayo amniga deegaanada koonfur galbeed dhawaan ay qorsheynayaan inay bilaabaan howlgallo lagu furayo wadooyinka go'doonsan wasaaradaha cadaaladda, boostada isgaarsiinta, tan batroolka iyo haweenka ayaa sidoo kale laga dhageystay warbixin ku saabsan howlaha shaqo ee wasaaradaha ay u hayaan shacabka reer koonfur galbeed iyo dadaalada ay ku bixiyaan miradhalinta himilooyinka shacabka sidii loo furi lahaa wadooyinkaas. Cali Wardheere Cabdiraxmaan gudoomiyaha degmada Baydhabo oo maanta warbixin ku saabsan howlaha ballaarinta iyo dib u dhiska wadooyinka magaalada Baydhabo ayaa ka jeediyay shirka golaha wasiirada ee maamulkaasi isagoona sheegay in ka maamul ahaan ay wadaan dadaalo lagu horumarinayo bilicda magaalada iyo hirgelinta wadooyin cusub. Madaxweynaha maamulka koonfur galbeed Soomaaliya Cabdicasiis Xasan Maxamed Lafte Gareen ayaa bogaadiyay in la sii dardargeliyo howlaha lagu adeegayo shacabka ku nool deegaanada koonfur galbeed Soomaaliya oo intooda badanba ay u go'doonsan yihiin xarakada Al-Shabaab.